بسم الله الرحمن الرحيم وانigoo أحمد نور محمد عبد الله kana soo hadlaya New Zealand waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan aad iyo aad aan uga hadli doonaa arrimo ku saabsan khaatumo iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxa weeye waxaan maqlaayay waqooyi iyo koonfur ha loo wada hadlo arrimahaas hal yeelo haddii kale waqtiga ayaa dheeraanaya heshiiska koonfur ay ula hadlayso Somaliland waxa weeye arrintaasi waa arrin isticmaar ka soo jeeda abuurka dhulka Ilaahay baa iska leh qolo walbana meel buu dejiyay ninka la yiraahdo Cusmaan Kalluun wuxuu yiri wax Somaliland la yiraahdana ma jirto Puntland wax la yiraahdana ma jirto Jubaland wax la yiraahdana ma jirto Soomaaliya isticmaarku magacyada uu u bixiyay dalkeena inay ku socdaan ma ahan ayuu yiri fikradda noocaasana anigu aad iyo aad ayaan u taageersanahay haddii kale baqiil ayaa noqonayaa runta haddii aanan sheegin dhulka Ilaahay baa iska leh qolo walba meel buu ku nooleeyay waxaa soo haray qaabka isticmaarku uu u qaybsaday dalal badan oo Afrikaan ah 1884 Berlin lagu qaybiyay waxa weeye afkaarta isticmaarka waxa ka weyn abuurka Ilaahay ee dhulka qolo walba meel u dejiyay qolo walbaba oo doonaysa inay ka mid noqoto Soomaaliya iyadoo kaligeed ah ayay Soomaaliya ku soo biiraysaa Soomaalinimadana sidaas ayay u qaadanaysaa ma aha qabiil inuu dul saaran yahay waxa weeye aniga midnimada ummadda Soomaaliyeed qiimaha waxa ay ku leedahay magaca Soomaali bay qiimo ku leedahay laakiin qabiil kuma laha marka waxa weeye qolo walba meesheeda iyadoo degan siday dawladda dhexe ula xiran lahayd waa in falankeed qolo walba ay gashaa dadka isku sheegaya siyaasiyiinta oo afkaarta noocaas oo qaldan qaba oo ah in koonfur iyo waqooyi waxa weeye koonfurna Soomaali baa degan waqooyina Soomaali baa degan boqolaal kun oo qabiil oo Soomaali ah ayayna u kala degan yihiin kulligoodna dawladda dhexe inay ku xirmaan weeye waxaan kale oo isticmaarka uu abuuray wax alla wixii waqtiga isticmaarka ku dhashay magacii ku dhashay waa waxba kama jiraan abuurka Ilaahay ayaa wax walba ka weyn qolo walbana meel buu dejiyay taa halka markaan uga baxo waxa weeye aniga toos waxaan ula hadlayaa oon u sheegayaa si cadaan ah in qiimaha ay leedahay ummadda Soomaaliyeed kulligeen aan u guntano beenbeenta in la iska dhaafo caadifada in la iska dhaafo maatada bulshada haweenka caruurta dadka yaan lagu cayaarin adduunkii hore u maray sawaariikh iyo adduun iyo arrimo gaar ah ee teknolojiyada cirka marayso ayaanu ku dhex jirnaa annagana bini aadan baan nahay xayawaan ma nihin waa inaan u fikirnaa ummadaheena dadka aan ka dhalanay ee Soomaalida ah waayo Soomaaliniman ku dhergi karnaa in magaca Soomaaliyeed sharaftiisa iyo haybadiisa kor loo qaado waa in qolo walba qolada jaarka la ah ay dhowrtaa ay dhaweysaa ay qiimaysaa ay wax istaraan oo laga dhabeeyaa Soomaaliya tooso isku tiirsada hadba kiini taag daran taageera weligeen waxa weeye arrintaas ayada ahi waa in Soomaaliya ay ka dhabeeyaan diinta islaamkana waa inaanu adkaynaa waayo ummadda islaamka ahi waxa ay ku dhisan tahay waa kutubka Quraanka ah ee lagu soo dejiyay Nabi Maxamed calayhi asalaatu wasalaam
marka waa inaanu isku xirannaa ilaahayna aan ka cabsannaa nin walbaba qabri baa sugaya mara kafanoo cad ah ayaa adduunka ka raacaya dayuurad hadduu lahaa waa ka tegayaa baabuur hadduu lahaa waa ka tegayaa guryo hadduu lahaa wuu ka tegayaa hanti kasta hadduu lahaa waa uu ka tegayaa qabrigaas ayuu gelayaa adduunkanna waxa weeye qiimahiisa iyo sharafkiisa waxa weeye waari mayside war ha kaa haro warkuna waxa weeye markaan dad jiilba jiilka ka dambeeya waa inuu xarig isu dhiib weeye qori isu dhiib weeye waa in dadka aanu ka tegayno aan wax wanaagsan uga tagnaa waxaa idin leeyahay Soomaaliyay midooba isku xirma federaalkan la diidan yahay oo hadda laga soo horjeedana muddo asagaaba iska dhamaanaya waayo waxaan rabaa nin kasta oo Soomaaliya oo meel kasta ka baxa oo meel kasta maraya miyi iyo magaalaba sidii aan isu soo dhaweyn jirnay oo wax isu siin jirnay Soomaaliya inay sidaa noqoto qalbigeennana Allah isu xaaro dawladda hadda dhalatayna aad iyo aad bay u fiican tahay dawladda hal la taageero dawladda garab hal la siiyo reer Muqdishowna waxaan leeyahay ilaahay dhibaatada iyo wareerka ha in ka dhameeyo dawladda la xirta wixii cadawga iska qabta siyaasadda iyo arrimaha hoos ka socda ee lagu wado dhibaatada bulshada gudaheedana xamar waa in la xasiliyaa waayo dawladda kaligeed wax ma qaban kadhee waa in shacbigu dawladda akhbaarta siiyaa oo xaalad walbaba dawladdu ay maarta gacanta ku dhigtaa Soomaaliyana waa barwaaqoobaysaa Soomaaliya waa fiicnaanaysaa Allah idin guuleeyo dadaala ilaahay ummadda Soomaaliyeed culayska ha ka qaado iskana dhaafo qoqobnaanta iyo cuqdada iyo waxa iska dhaafa nin kasto Soomaaliya ninka kale ha soo dhaweeyo waxa siiyo ha u qoslo ha salaamo dad walaal ahaatiin sidaas ayaa idinku ogahay waa Axmed Nuur Maxamed Cabdille oo in kala soo hadlaya New Zealand assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh